Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mike ayay sanado badan haysatay mushkilad dhanka hurdada ah oo wuxuu ka quustay in uu helo barkin ku wanaagsan hurdada si uu subaxii u soo tooso asigoo nashaad leh oo aan dareemaynin wax caajis ah iyo jajab. Dhibaatadan dadka qaar waxay u arkaan mushkilad yar oo aan weynayn, laakiin caqliyadda hormuudkaani ganacsada ee Mike waxay mushkiladani ku hogaamisay in uu ka fakaro sidii uu ku samayn lahaa barkin heer sare ah una wanaagsan naftiisa iyo dadka kale ee ay haysato mushkiladan. Laakiin halkan ayuu ka bilaabay safarkiisii uu ku xaqiijin lahaa riyadiisa, isla markaana uu ku heli lahaa barkin ku wanaagsan hurdada. Wuxuuna aasaasay shirkadiisa maanta dunida caanka ka ah ee lagu magacaabo MyPillow. Waa shirkad u gaar ah farsamaynta barkimaha, isla markaana soo saarto barkimo tayo sare leh oo barkimihii hore u jiray wax weyn ka duwan, isla markaana loo bogay. Haddaba sidee ayuu Mike ku gaaray yoolkiisa? Mike ayaa dhashay June 28 sanadkii 1961 kuna dhashay Mankato, Minnesota. Wuxuuna asigoo 16 sano jir ah ka shaqo bilaabay dukaan. Muddo kadibna wuxuu la yimid madax adeeg iyo amar diido, taas oo ku qasabtay milkiilaha dukaanka in uu Mike cayriyo, isla markaana ku dhaho kelmado dhiirigelin u noqday Mike kolkii dambe. Waxay ahaayeen kelmadahaasi: haddaad diyaar u ahayn qaadashada amarkayda, haddaba dhaqaaji oo adiga naftaada amiir u noqo. Mike ayaa isku xiray kelmadihii maamulihiisa iyo mushkiladii haysatay ee dhanka barkin xumada ah. Wuxuuna go'aansaday sidii uu u samayn lahaa barkin wanaagsan oo marka qofka hurdaya madaxiisa ku xoqo heerkulkeeda kor uusan u kacaynin, dhan kalena aan kala daadanaynin markii in badan la barkado, sidoo kalena aan duugoobaynin marka la mayro. Mike ayaa ku dhaqaaqay fulinta qorshihiisa. Wuxuuna bilaabay barashada qaabka wax loo talo iyo noocyada waxyaabaha laga sameeyo barkimaha. Intaa waxaa u sii dheeraad oo isha ku hayay sicirka barkimaha suuqa lagu kala iibsanayo. Wuxuuna isku dayay in uu isku dheelitiro tayada barkimaha iyo qarashaadka ku baxaya farsamadooda si uu marka uu suuq geeyo ugu iibiyo qiimo macquul ah, isla markaana u helo macaash badan. Mike ayaa kolkii dambe ku guuleystay inuu farsameeyo barkin u fududaysay inuu helo hurdo fiican. Dhan kalena wuxuu soo saaray 10 barkimo. Wuxuuna sanadkii 2004 shirkadiisa magac ugu dhigay magacaani gudaha dalka Mareykanka caan ka noqday ee MyPillow ama barkintaydii. Mike ayaa kalsooni buuxda ku qabay barkimihiisa cusub maadaama uu sameeyay qaab casri ah, isla markaana tayadooda aad u sarreyso. Dhan kalena aan suuqa laga helaynin barkimo u dhigma ama u qalma. Laakiin Mike ayaa suuqa kala kulmay wuxuusan filaynin, oo waxaa iska diiday barkimihiisa inay ka iibsadaan dukaamikii weynaa ee iibinayay agabyada lagu goglo sariiraha. Diidmadani Mike waxay ku noqotay dharbaaxo kulul oo wejiga lagaga dhuftay, maadaama suuqa laga diiday wixii uu ku tiir iyo tacab beelay, isla markaana uu doonayay inuu mugdiga baagamuudada iyo shiid kaga baxo. Laakiin ma isdhiibin ee wuxuu go'aansaday inuu kiraysto qol yar uu ku iibsado barkimihiisa, isla markaana wuxuu ku fakaray inuu badeecadiis u sameeyo xayeysiin. Laakiin ma uusan haysanin lacag uu ku kiraysto qolka, isla markaana uu ku samaysto idheh. sidaa daraaddeed wuxuu ku qasbanaaday inuu gurigiisa rahan dhigto, dhan kalena uu iibiyo qaar ka mid ah hantidiisa si ay ugu suura gasho inuu hore u socdo. Wuxuuna helay intaasi marka uu sameeyey lacag gaaraysa $15,000. Wuxuuna dukaankii ugu horreeyay furay xilli la isku diyaarinayay ciidda Christmaska. Wuxuuna ku bilaabay dukaankaasi 300 oo barkin, laakiin waxaa laga gatay 80 xabbo oo barkin ah. Sanadkii 2005 mid ka mid ah shakhsiyaadkii ka iibsaday barkimaha ayaa Mike ku casuumay inuu barkimihiisa la imaado bandhig carwo si ay xayeysiin ugu noqoto. Mike ayaa ka faa'iidaystay fursaddan dahabiga ah. Wuxuuna dadweynihii u soo bandhigay barkimihiisa. Wixii ka dambeeyay bandhigaasi, barkimihii Mike suuq xog leh ayay heleen oo waxaa laga iibsaday tiro badan oo barkimo ah. Wuxuuna helay macaash badan, taas oo kolkii dambe ku khasabtay in uu diiwaan gashto batantaha hal-abuurnimada si uu u ilaashado hindisihiisa dhanka barkimaha ee uu ku soo rafaaday. Mike ayaa sii waday idhayada uu u sameynay barkimihiisa, waxaana ku soo yaacay macaamiil badan kuwa oo maalin kasta ka iibsanaya kumanaan barkimood.
Mike ayaa ballaariyay wax soo saarka shirkadiisa wuxuuna ku soo kordhiyay joodariyaal iyo dhammaan waxyaabaha lagu goglo aqalka. waxayna shirkadiisa Maybello sanadkii 2017 farciyadeeda gaareen ilaa 17 wilaayo oo ka tirsan dalweynaha Mareykanka. hadda hamiga Mike kuma eka halkaani ee wuxuu dadaal xoog leh ugu jiraa sida uu shirkadiisa ugu dhigi lahaa midda ugu horeysa caalamka ee dhanka barkimaha, waxaana maalinta ka dambaysa kor u sii kacaya saamiga shirkadiisa Maybello.